kasta oo Soomaaliya ayuu taliye ciidan u yahay waa taliyaha ciidanka Soomaaliyeed ee booliska ma aha qabiil ma aha qof adigu aad adeegsan kartid ma aha qof adigu waxa aad jeceshahay sameyn kara ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan buu mas'uul ka yahay aniga waa taliyahaygi hadeer maraya soo baxay amarkiisaan ku soo baxa soo waxaad garanaysid ma laakiin wax khaldan kuguma taageeri karo wax aad ku kibrisidna kuguma taageeri karo shacabka Soomaaliyeed baad ka mid tahay shacabka Soomaaliyeed oo ciidanka iyo Soomaaliyeed oo anna ciidan igu yahay taliye igu yahay adna kugu yahay taliye ciidan Soomaaliyeed walaalkayow waxa aad wadid ee dhaleecaynta ee fadeexada ee kibirka ee adiyada ee aad meel walba la taagan tahay inaan arkay aniga waxaan doonaa sameyn karaa ma soconaso waa adiga mid ka daba imaanaysa dumarka ayaa waxay ku faanaan waxyaalaha noocaas oo kala ah in adeerkay baa taliye ay dumarka ku faana waa meelaha aan kaaga shakiyay ee baaritaanka aad uga baahan tahay in lagu soo baaro qof allaala qofka arkow saa u kala qabo jabro sida u kala qabo eeg wuxuu maninba soo naag walaalkay halgu baaro meel baaris hal geeyo wiilka gariiqan gariiqan yo horta ninkaas anu gariiqan waa ka bedeli xabsi yaqaan baan u bixiyay wiilka qalbada jabtay maraykan baa qalbada ku soo jabtay nolosho dhan baa wastay gidaar buu ka soo go'ay tigay nolosho dhan baa wastay gidaar buu ka soo go'ay ohin shariifa ayaa dhaweyd baan xoogaa maqas ku qabta odaga shacbiga la horgeeyay odagu waliba waa u naxariistayo anigu dee miidiana kama sheegin katiinadan xitaa ka faray waxaa ninkaa katiinada laga furo intuu maxkamadda joogo oo hala ilaaliyo si wacan loola dhaqmo laakiin da waa nacas haddaad xitaa si wacan ula dhaqantid ama si xun ula dhaqantid mar walba waa iska xoolo weeye waa qof iska jaahila oo wareersan oo meel walba wuxuu moodayaa in oo jeelkii Maraykan oo isku yaaci jiray moodayaa xabsi yaqaanow saaxiib caadi iska dhig in jaahila oo wareersan baa tahay noloshuna qofka jaahilka aad iyo aad bay ugu xun tahay oo nolosha adiga kugu neekisay oo ku wastay aad iyo aad boqolkiiba boqol midkii qof maxaan ku raadaay la si qasan karo waxa tahay qof stress qaba waxaad aaminsan tahay noloshaada dhan inay burburtay noloshaada dhan inay burburtay aaminsan tahay reebel baa sidana baanta sidana reebala dumar waxaas anigu niyow nin waxa ka way baanahay aduguna aniga dee waxa weeye laba nin oo iskarnayna anigu haddaad istiri shariif isaa ku xidhana anigu kuma xidhna sharciga ku xidhay ayaantii dhaweyd waana lagu bariyay sharciga oo waxa weeye si wanaagsan baa waxa weeye lagu bariyay ka leexanaya laakiin niyow caadi iska dhig weli waxaad ku soconaysaa hay baad ku soconaysaa wax fahan dadkaaga dhinac ka raac sharciyada iyo waxba ka sheegin joogaaga dejiso wiilkana la baaro baarisa lagu sameeyo degdeg ha loo baaro sil hadaan laga helin oo uusan ku oolin niyow kaaniyow halayga xiranayo farad waxan waa wax waxa weeye nooc kala weeye horta waxan ilaahay markuu sameeyay muxuu la jeeday waxan muxuu sameeyay ilaahay wuxuu naagna maaha ninna maaha wallahi billah dumar busaa ugu jiraa heblaaya waxay tiri heblaaya sidan ay tiri heblaaya halkan ay ka boodi heblaaya waxay samaysay sidan heblaaya booday wala hawla wala quwwata illa billah war dumarka ka dhaxbaxo goobaha ragga inta aad tagtid hal ogaado inaad nin tahay oo meel isku cadeey rageed maalin dheeli gabadh Soomaaliyeed googaradeeda haysan gabadh kale la haysan hadeer waxa leedahay anu gabdhaha ma dhex galo oo gabadh baa waxa weeye u hiilinaya niyow hadii gabadha aad leedahay waa u hiilinaya ee aad garabka saaraysid xumaanteed ka talinaysaa wanaageeda ka tilmaysid
in meel waxa weeye xun lagu tuuro oo ay xaaladdu ku fogaataa ka shaqeynaysaa oo markaan sida saxda ah kula hadlo wax laga sameeyay anu garan maayaba nooc lagu talagalay garan maayo waxba ka khaldanba gabadhan kale ee aad ka hiilinaysidna aad leedahay ilmaadeer baan aad leedahay hadana waa la og yahay wax leexleex ma teeda kale labada gabdhood haddii aad xitaa waxa weeye reality-ga saxda ah ku dhimanaysid oo aad midna taageeraysid oo aad leedahay taa waan la jiraa midna waxa weeye aad leedahay lama jiro walaalow waxaan ku leeyahay oo aan kuu sheegayaa waa laba gabdhood oo Soomaaliyeed labaduba waa giyaanka labaduba waa gabdho Soomaaliyeed ka dhexbax halka ka istaag waa mid aan kuu sheegay adiga haddaad nin raga tahay diya adiga sharaf ku ah haddii aadan sharaf dhac u socotid oo had iyo goor aad dumarka ku dhex jiraysidna dumarka qayb ka mida baad noqonaysaa hormooniska dumarku inuu kugu badan yahay anigu waa u jeedaa oo nin sidan kuma ahaanaysid dhammaystiran weliba saasaan laba nin oo dhalinyaro ah oo saaxiibaa ku ahayn oo dee anigu kuma sii egeegin hoos kuma sii raacin laakiin waan shakiyey boqolkiiba boqol waa shakiyey waayo maalin gabdho aad leedahay kuwana abgaala kuwana habar gidira isku diraysaa maalin waxa isku diraysaa maxaan ku raadin laba gabdhood oo walaalahaayo ku siman oo gabdho Soomaaliyeed maalin dheeli dumar kama dhexbaxaysid ka dhexbax dumarka walaalo meel gaar istaag waxa lagu soo hagaago nin raga noqo waxaan aad iyo aad ula yaaba marka aad leedahay sharciga iyo dawladnimada waxa ka weyn social media noo been baa isku sheekaysa boodboodkan aad boodboodis iyo khiyaaligan iyo caydan iyo waxaan no ma shaqeynayaan wax walba oo jira dawladnimada ayaa ka sareysa dawladnimada meel ha uga dhicin dawladnimada ha ku kibrin ha ku eedoobin dhaqankaagan ma aha dhaqan caadi ma aha waxaad la mid tahay qof sharciga gacantiisa ku istaadiraado oo ku dhacaya wax allaale wax kastaba aniga hala ii soo diro fiidiyoyo sidan hala yeelo dawladnimada waan jeexjeexayaa warooy joog war cagta joogsan weydaa mar bay ceeb la kulantaa waxani aayahaaga uma fiicna dhalinyaranimay ku qaadi sharif ciyaama ana xirey baa tiri anigu haddaan waqooyi bari joogo iyo haddaan muqdisho joogo labada jeer ba ciidan baana digtoonow amar qaado waa xiran tahay baa xidha ni ciidan ana halka haddaan joogo waqooyi bari baad mooday meel allah meel kastaan joogo digtoonow waa xiran tahay baa xidha ni ciidan ana amar qaatana sarkaalkay xiray ama kuwa ka sareeya markay fasaxaan fasax baana sharci ciidan baan ku xirmaa kuna fasaxmaa waxyaalo badan oo adiga aad ku dhaqmisid baananu iskaga leexleexdaa sida dumarka in la dhex galo in waxa weeye dawladnimada maartay xadgudubka dawladnimada dhaqan xumooyinka aad ka hadlaysid waxaas oo dhan aniga way iga xiran yihiin waa ilaaliya sharciga boqolkiiba boqol waa ilaaliya dawladnimaduna wax walba iyada ka weyn adiguna haddii aad Kenya joogtid iyo haddii aad Afrikada kala wareegaysid meel kasta booliska Soomaaliya waa ka howlgalaa maxkamadda Soomaaliya waa ka howlgashaa haddii dadkan maxkamad la saaro oo maxkamad ay noqotona adigu inaad soo gelisid waan oga oo waxa weeye aad ka shaqeynaysay dilkan iyo waxan iyo howlahan oo dhan oo socdeen aad ka shaqeynaysay oo adigu aad gabadhan aad waxa le badda gelinaysid aad ku riixaysid aad leedahay garabkaaga ana taagan ee aad debinka u qoolisid